الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إلهي بامهد سبحانه وتعالى inagu kulmiyey masaajiddiisa ka mid ah maalin maaragtay ramadaan bishii ramadaan ka mid ah marka inagoo wax isu sheegayna ama wax is xusuusinaynaba insha allahu waxaa weeyaan waxaan idiin sheegayo waxaa laga yaabaa dadka in badan oo ka mid a inay garanayaan kii garanaya xusuusin bay u tahay kii aan garanayninna waxay u noqon doontaa cilmi iyo wax uu ka faa'iidaysto. ilaahay marka waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala waxa aan isu sheegi doono ilaahay inuu inagu anfaco dembigeen iyo kii waalidkeenna u dhaafo. bil ramadaan baan ku jiraa, ilaahay uu naaraha inaga xoreeyo, abaarta iyo colaadana ilaahay inaga bixiyo, qulubteennana ilaahay isu soo jeediyo, nin walbana meeshuu ka kurbaysan kurbada ilaaha ka qaado, kii xanuunsan xanuunka allaha ka qaado, kii ilmo la-aana maaragtay ilaahay ilmaha siiyo, kii faqri iyo baahi ku jira ilaahay ha ka bixiyo. intaa kadib nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabigii laynoo soo diray buu ahaa, waa nabigii nebiyada ugu dambeeyey. kitaabkeenan qur-aankeen haysanee quruxda badan iyo sharafta badan baa lagu soo dejiyey. waxaa kaloo nabiga la siiyey calayhi salaatu wasalaam axaadiid fara badan. axaadiidta nabigu uu sheegay wax uu naftiisa ka yidhi ma ah, waxuu iska yidhina ma ah, waa waxyi. marka labada waxyi ee nabiga lagu soo dejiyey mid waa qur-aanka, midna waa xadiidka. xadiidka markuu ilaahay ka hadlay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa callamahu shadiidu lquwaa duu miratin fastawaa. waxaa weeyaan nabigu hawadiisa iyo wax naftiisu ay jeceshay kuma hadlo, ee waxa uu ku hadlayo waa wax loo sheegay oo ilaahay xaggiisa looga waxyooday, malakul jibriil loogu soo dhiibay. marka hal xadiid ayaan rabnaa inaynu maaragtay isu sharaxno hadduu ilaahay yidhaahdo. xadiidkaa waxa uu sheegay wax cusub idinkuma ah, laakiin laga yaabo xadiidkanoo saa u wada socdo dad badan inuu ku cusub yahay, qaarna ay horey u maqleen. xadiidkaa wuxuu ka mid yahay dardaarankii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam. haddii waanu nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam dardaarankiisu wax uga baahan tahay, xadiidkan inoo soo socda oo 5 shay oo dardaarankii nabiga kulmiyey nin walow aada u dhegeyso. xadiidkaasi wuxuu leeyahay abu hureyra radia allahu canhu, nabiga ayaa maalin isagoo dhex jooga saxaabadii ayaa wuxuu yidhi kelimaad ama waxoogaa hadala yaa iga qaadanaya oo baranaya oo ku camalfalaya ama gaadhsiinaya ruux ku dhaqmahaya. insha allahu marka waxaa la rabaa markaad wax dhegaysanayso iska dhegaysa ma ah, wixii inaad barato haddana aad ku camalfasho labadaaba. macnaa waxa weeyaan inaad wixii fahanto marka hore oo aad barato, haddana aad ku dhaqanto oo aad ku socoto oo aad qaadato, oo hadduu wax kaa reebayana aad wixii ka tagto, hadduu wax ku amrahayana aad wixii qaadato lagaaga baahan yahay. laakiin intaad maqasho inaad iska dhaqaaqdo keliya ma ah. inaga Soomaali maanta ruux jaahila waa inagu yaryahay, khaasatan dadkeena reer Gaarisa waxaa inagu yar wax jaahila waa inagu yaryahay. masaajidda inoo badan, muxaadaraadka inagu badan, qur-aanka la akhrinayaa badan, idaacadaha iyo maarata FM-yada wax badan sheegayaa jira oo fara badan. markaa ruux maanta la dhihi hebel waa jaahil oo reer Gaarisa waa yaryahay ama maba jiraad is dhihi kartaa. wax walba waa ina soo gaaray oo diinta ilaahay ka mid a. laakiin maxaa laynooga baahan yahay oo faa'iidadu ay ku jirtaa? diintu barasho ma ah, waa dhaqan. kolkaad wax maqasho wixii waa inaad qaatood ku dhaqanto, saa unbay diintu diinkuugu noqonaysaa intii aad kari karto. waxaadan kari karin de lagumaba haysto, laakiin wixii aad kari karto adiga maaragtay binafsi aad u kari karto, nafta ahaanta aad u kari karto, maxaa lagaa rabaa inaad maaragtay ku dhaqanto ood qaadato, oo waxa ay ku amraysana aada la imaato, waxay kaa reebaysana aad ka tagto. xadiidka haddaan dib ugu soo noqono, nabigu calayhi salaatu wassalaam hadalkaa markuu soo jeediyey abu hureyra radia allahu canhu, ragga aada xadiidka nabiga u jecel ahaa, wax badanna axaadiis badan nabiga inooga xambaaray oo soo xifdiyey, ayaa wuxuu yihi anigaa diyaara, anigaa baranaya, anigaa ku dhaqmahaya,
anigaa sii gaarsiinaya ciddii kale ku dhaqmi lahayd qaadan lahayd, dadkii kale qaadan lahaa anaa sii gaarsiinahaya. shantaas shay waxaa weeyaan nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu ka bilaabay itaqi lmaxaarima takun acbad annaas warda bima qasama allahu laka takun agna annaas wa axsin ilaa jaarika takun mu'mina wa axiba linnaasi ma tuxibu linafsika takun muslima walaa tukthir addaxik faina kahrata addaxiki yumiitu lqalba ama tumiitu lqalba. xadiidkaa waxaa wariya imaam axmed wuu wariyaa, tirmidina waa wariyaa, aimo kale iyo kutub kalena way qoraan. imaam albani raxmat ullah aleyh wuxuu le xadiid xasana. xadiidka macnihiisa haddaan u noqono waa 5 shay, qodob qodob nin walba aada u dhegeyso inaad baran karto, adigana aada sii gaadhsiin karto dadka kale, inaad sii gaadhsiin karto adoo ka bilaabayaba gurigaaga, ilmahaaga iyo haweenkaaga, ruuxii weyn, kii kale dhalinyaraana saaxiibadii iyo dadkii la dhashay iyo dadkii jiiraanka ah. 5taas shay nabigu alay salatu wasalaam wuxuu leey yaa maarata iga qaata, yaa qaadanaya oo baranaya oo ku dhaqmahaya. wax sahlan markaa ma ah. ruuxa le waxan yaa qaadanaya oo baranaya oo ku dhaqmahaya oo ku camalfalaya waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. nabigana waa jecelahay soo maa ya inaan ummaddiisi noqonana waan rabnaa. ummaddiisa waxaan ku noqonaynaa inaan rumayno oo jeclaano oo ku sallino oo wuxuu inoo sheegay aan qaadano, wuxuu inaga reebay in aan ka tagno. laakiin waa nabiga waa jecelahay, afka waxba ma tarayso, sunnadiisi iyo waddadiisana ma marayo, laakiin waan jecelahay isma keenayso. waxa aad jeceshahay wixii uu ku amro, macnaha ruuxa aad jeceshahay wuxuu kuu sheegay waad qaadan. maarata ruuxa muxib aad jeceshahay wixii uu kuu sheego waad qaadan, wuxuu kaa reebana waad ka tegi. nabiga marka haddaad jeceshahay calayhi salaatu wasalaam wixii uu kuu sheegana qaado, wixii uu kaa reebayna ka tag. wixii uu kaa reebay waxaan iska daakulina iskaga tago faraha ka qaad. 5taas shay wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam, kow waxaa weeyaan itaqi lmaxaarima, waxaad iska ilaalisaa ood ka cabsataa waxyaalaha xaaraamta ah. itaqi lmaxaarima, maalinta xaaraanta iska ilaali. marka waxaa maaragtay uu nabigu inagula dardaarmayaa calayhi salaatu wasalaam wixii xaaraana inaan ka tagno. xaaraanta oo la sameeyo, waxaan ujeedaa laga tago, iyo waxyaalaha waajibka oo lala yimaado kee fadli badan. culimadu maaragtay waxay dhahaan labadaba sidooda waa in loola imaado, laakiin waajibaadku daatadooda ama si ahaantooda maqsuud yihiin. waxaa laga yaaba waajibaadku inuu fadli badan yahay, laakiin nabigu muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xaaraantii isaga tag, wixii xaaraanta isaga tag. haddaan xaaraantii ka tago maxaan ka faa'iidayaa? itaqi lmaxaarim, xaaraamtii iska ilaali, maxaan ka faa'iido? lama su-aal meesha ku jirtaa. wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaad noqonaysaa dadka ninka ugu cibaado badan ee ilaahay ugu caabudi og. qofka ugu cibaado badan waa qofta xaaraanta iska dhowra, ruuxa xaaraanta iska ilaaliya. xaaraantii maalan shirkigii baa ka mid a, ilaahay wax lagu daro iska ilaali labadiisi noocba. waxaa ka mid a dilkii baa ka mid a, oo aada ruux disho bini aadam xaqdarre aad ku disho, waa inaad iska ilaaliso, ama aad dilkiisaba ka qayb qaadato, ama aada lacag ku bixiso, ama aada raalli ka noqoto, ama aad ka soo shaqayso ra'yi iyo talo ku leedahay. waa xaaraanta iska ilaali lagu leeyahay. waxaa ka mid a zinadii baa ka mid a, zinadii oo xaaraanta ahayd ayaa ka mid ood garanaysaan. waxyaalaha xaaraanta, waxyaalaha waaweyn wax ka mid baan mithaalinayaa. macnaa zinadii baa ka mid a, zinadaasaa sii kala waaweyn. oo wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam zina midda ugu daran waa dadka jiiraanka iyo dariska kulaa gabdhahooda iyo haweenkooda inaad maaragtay aada ka zinaysato, waa midda ugu sii daran. iyadoo zinaba ay xaaraanta iyo midba mid kasii weyn tahay. marka waxyaalaha xaaraanta nabigu iska ilaalinaya leeyahay calayhi salaatu wasalaam zinadaa ka mid a. zinada middan un galmada keliya ama islaan loo taga keliya zinadu ma aha. ishu way zinaysanaysaa, waa inaad is ilaaliso. ishaadu hadday islaan aan maaragtay ku banaanayn ku dhacdo, jirhkeeda ay ku dhacdo, waa inaad ka jeedsato. taa hore laguma haysto. laakiin maaragtay inaad sii fiiriso gabadh xaaraankaa ah oo aan xaaskaaga ahayn, ilmahaad adigu dhashayna aan ahayn, kuwii ku dhalay oo hooyada iyo habaryaraha iyo eedooyinka oo kale aan ahayn, maaragtay kuwaad adiga abtiga ama adeerka runta u aha aan ahayn, inaad fiiriso laguma ogolo. waa zinadii, waa nooc zinadii ah.
way kala waaweyntahay zinadu. qalbiga ood maaragtay ka damcdaa zinadii ah, afka ood kaga hadasho ood aragteen dhalinyarada maanta telefoonay ku waasheen, caawo dhan gabadhii wiilba way hadlahayaan, caawo dhan gabadhii wiil way hadlahayaan, ama waxbay qorayaan, ama waxbay fiirinayaan, ama telefoon bayba ku hadlahayaan, dad ajnabi ah wada hadlahaya. gabdhuu la sheekaysanaya wiilkii, gabadhii wiil ajnabi la sheekaysanaysaa. bil soonna waa ku jiraa, ogaada, bil soonna waa ku jiraa. soonka ilaahay iskale aad ka cabsanayso yaa bisha soonfurra iskale. saad soonka u cabsanayso ood xumaanta isaga ilaalinayso yaa maxaa la rabaa bilaha soo socdana inaad isaga ilaaliso. adiga xumaanta wax lasoo koobi kara ma ah. zinadaasaa ka mid a, xasadnimadaa ka mid a, kibirkaa ka mid a, ribadoo la cunaa ka mid a, qishka iyo wax dadka la isugu dardaroo laisku khaldaa ka mid a, beentaa ka mid a, isku dirdirkaa ka mid a, maaragtay xaaraantoo la cunaa ka mid a. waa fara badan tahay maaragtay, baashaas waa fara badan tahay oo waxyaalaha xumaanta ee laynaga reebay ee waaweyn waa badan yihiin. adduunyadoo la jeclaadaa ka mid a, adduunyadoo jeclaato oo addiintaadi ka doorato oo aakhare aad ka doorato dembiyada waaweyn bay ka mid tahay in lagu halaagsamayo. man kaana yuriidu alxayaata addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar. dadka adduunyo doortay ee aakhare ka doortay waxa weye naarun bay leeyihin ila rabbi subxaanahu watacaala. marka adiga xadiid macnihiis waxaa weeyaan war wax kastoo ilaahay uu kaa reebay iska ilaali, baro. dembiyada xaaraanta ah waa laba nooc, kabaa'ir kuwa layihahdo waaweyn iyo kuwo yaryar bay leeyihiin. kuwa waaweyn culimada qaar boqolyo waxbay gaarsiiyeen, qaar way ka yarbadiyeen, qaar way ka yareeyaan. kutub baa qortay, waad fiirin kartaa dembigan ma kuwii waaweynaabaa ma kuwii yaryarka ahaaba. waxa ay ku kala duwan yihiin dembi yar iyo dembi weyn, waxa u dhexeeya waxaa weeyaan dembiga weyn toobad buu kaaga baahan yahay. toobad inaad toobad keento, toobadii shuruudda lagaa helo, shuruud bay leedahay, iyuu kaaga baahan yahay. amaa dembiga yar waxaa weeyaan ilaahay wuxuu kaagaga dhaafaya wanaagga aad samaynayso. ina alxasanaati yudhibna asayi'aat waatbici alxasanata waatbici asayi'ata alxasanata tamxuhaa buu nabiga caleyh isalaatu wassalaam. dembi yar hadduu kaa dhaco oo aadan daa'imin, waxa weyan salaadii hadda aad tukatay casarka hadduu ilaahay kaa aqbalo yaa lagaaga dhaafi. mathalan duhri casar intii udhexaysay, maqrib iyo casar inta udhexaysa wixii dembi oo yar oo kaa dhaca waxaa lagaaga dhaafaya, maqribkaa lagaaga dhaafi, maqrib iyo cishana saas oo kale. marka waxaa weeyaan dembiyada niman waa iska ilaalino. dad yahu muslimiinta rag iyo haweenba waxaa ummad halaagta waa dembi. welibana waxaa inoogu daran dembiyada yaryarka ah. dadka in badan waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo anuu ruux weyne maan ruux dili karaa, ma shirki baan ku dhici karaa, ma zinaan ku dhici karaa, ma waxbaan xadi karaa, inuu iskaba ilaaliyaa laga yaaba. laakiin dembiyada yararka ee la daa'imo waa lagu halaagsamaya. wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam, waxaa jira dad maaragtay qiyaamo markii waxaan ujeedaa markii aakhare la tago dad baa waxay la imaanayaan acmaal waaweyn bay la imaanayaan, waxyaalo waaweyn oo ajir iyo khayr ah, oo salaada, oo soona, oo zakaa, oo sadaqaa, oo xaja, oo dikri ah, oo qur-aan akhrisa, wax badan bay la imaanayaan. markaas waxa nooca waa lais miisaami doonaa, oo qur-aanka wax badan waad dhegeysateen tafsiirkiisa, miisaan baa laysi saari doonaa, acmaashaadi baa laysu miisaami doonaa, oo adigaa lagu miisaami doonaa, oo kolba kii xoog bataad noqonaysaa. haddii wanaagaagu uu batana ahlu jannaad noqoni, haddii wanaagaagu uu yaraado xumaantaadu badatana ahlu naar baad noqonaysaa. ilaahay baa la hor istaagaya subxaana watacaala. nin walba waxaad ku xisaabtantaa adoo qaawan oo hanshafaqab oon gudnayn maaragtay ee kugu taalo maaragtay wixii lagaa gooyey markii lagu gudayey oo kabala oo qaawan inaad god keligaa ka soo bixi doonto, keligaa inaad meesha ka soo boodi doonto, wax kula socdo uusan jirin, oo la wareersan yaho la carari hayo ninba meel maaragtay ummaddu isaa isu dhex ordayso. horta taa ku xisaabtan. haddii marka maanta aad dembiga ka dhowrsan weydo, ya qiyaamo wax camaloo la samaynayo, wax ajiroo lala imaanayo ma jire. meesha waxa lagu qaybinayo laba miisaan baa yaala, labada miisaan dhinacu uu ku bato unbaana maaragtay lagu dhaqaajinaya, ilahay inuu ku naxariista mooyeen. marka waxa lagu halaagsamaya waa xumaanta. nabiga marka wuxuu leh calayhi salaatu wasalaam, dadka camalkooda uusan waxba tarayni waayo waa dadka markay dadka dhex joogaan oo sidan oo kale yihiinna is ilaaliya, markay maaragtay isleeyihiin dad kuma arkaan oo ma ceeboobaysid oo maarata wax lagaama sheegayana xumaanta ilaahay maarata dhex dabaalanaya, xumaanta ilaahay ayaa dhex dabaalanaya. haddii habeenkii la gaadho ama meel cidlaa la tago xumaanta ilaahay baa la dhex dabaalanaya. kuwa nooca camalkooda waa la tuuraya,
kuwa camalkooda la tuurahaya. dembiyada yararka nabigu markuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy waxay lamid tahay dad safara socoto ah, dadkaasi waad aragtay oo qoryihii wax ku karsan lahayn ma wataan, waagi hore waa la lugeyn jiray, hadda gaadhii diyaaradii waxbaaba la hele, haddana inunba kulle lugaysa. marka markii meel la dego oo lagu furto meesha waxaa maaragtay intii un meesha duurka ama geedaha loo dhaqaaqa qoryihii wax lagu karsanaya laga soo qaado, kan mid buu soo qaado, kan mid wixii baa laysu keeno, markaase waxay noqonaysaa wax kariyo oo badan oo dab noqonaya. dembiga yar ee la daa'iminayana waa saas oo kale u nabiga calayhi salaatu wasalaam. haddaad naag dhowrto ama gacanta ku salaanto ama wax kaloo yar oo dembi uu kaa dhaco oo maaragtay ku ururta wuu ku gubi doonaa aakharo, isagaa ku ololin doona, isagaad ku halaagsami doontaa. marka aynu xumaanta iyo dembiga aynu iska ilaalino, saa un baan ku badbaadaynaa. maxaa yeelay ilaah subxaana watacaala xuduud buu sameeyey. bini aadamkii baaba kule xuduudka haysoo dhaafin. waad artay labada balood ama labada guri isku xigta meel baa loo sameynaya seerihii noqonaysa soo maha, dowladihii baa samaysanahaya, meel walba maaragtay qolo walba ay meel jeexanaysa, meeshan waa beertay, tanna waa taa, intana inoo dhexaysay yaa la dhahaya. meesha waxaa loo sameynaya inaan laga soo tallaabin oo aan laga soo gudbin. ilaahay subxana watacala marka xuduud buu sameeyey. xuduudda haddaad adigu ka tallaabad adaa is og. xuduudda ilaahay uu dhigay maaragtay xaaraanta ee uu meesha ayaan laga gudbin, haddaad ka gudubto oo aada hari weydo adigaa is og. marka waxa ugu horeeya dardaaranka ugu horeeya nabigu uu bixiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa weeyaan war xumaanta iska ilaaliya, war xumaanta iska ilaaliya. waxa uu nabigu uga dardaarmo waad garan kartaa calayhi salaatu wasalaam. waad aragteen ruuxa weyn ee maaragtay ilmi iyo reer ka tegaya markay naftu qabato hebel u dardaaran baa laleeyahay, saa ha la yeelo, waxaa ha la qabto, sidaa ha la yeelo, meesha deyntaas ha la yeelo. muxuu u dardaarmayaa? ya waa muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay arrintaas. waa arrintaa intay la eg tahay waa inu maaragtay meeshaas kolka nabigu dardaaranka uu ina siinaya calayhi salaatu wasalaam ee uu leeyahay war xumaanta iska ilaaliya uu ka bilaabay waxay ku tusinaysaa xumaanta iyo dembiga oo lagu dhaco iyo waxa xaaraanta oo lagu dhaco in lagu halaagsamayo. taasay daliil u tahay. haddii markaa aada is ilaaliso oo xumaantii aada iska ilaaliso waxaad noqonaysaa dadka ruuxa ugu fiican. maxaa yeelay waa nin is ilaalinayaa tahay. markii ay fasirayaan maaragtay culimada qaarkood cabsida ilaahay subxaana watacaala waxay lamid tahay qof wadda qaadahaya, waddabaad haysaaba waad kabala'dahay, waddadaasi qodax bay leedahay iyo gacandhi iyo waxbay leedahay, wax kumuday leedahay. lugtaada waxaad un dhigi soomaa meel aad arkayso ood hubto inaan waxba kaa durayn, inaan waxba kaa mudayn baad dhigaysaa. haddaad is leedahay meeshan qodaxdii baa taallo, madaangihii baaba geedkan maarata dhibka badan baa kumudaya ama gacandhi baa kumudaysa, lugtaada kuma aaminaysa, waadna kabala'da. sidaa way cabsida ilaahi subxaana watacaala laga cabsanahayo. meel aad hubto unbaad lugtaada dhigi, meel aad hubto unbaad naftaada la aadi, waxaad hubto inaan waxba lagaaga qabsanaynin baad ku hadli, waxaad hubto inaad ajri ka helaynin oon dembi kaasoo raacaynin baad samayni. waxa weyaan aad baad isu kontrooleysaa, aad baad isula soconaysaa, aad baad maaragtay isula soconaysaa oo naftaada u ilaalinaysaa si cadaabka aadan ugu dhicin. cadaab baa allah inaga horeeya, ilahay inaga badbaadi subxana watacaala. bishaan ramadaan habeen walba ilaahay subxaana watacaala dad buu xoreeyaa, naarta laga xoreeyaa, kuwa ilaahay hanagu dara subxana watacaala. dardaaranka labaad nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigaa iska kooban waxaa weeyaan oo uu nabigu inagula dardaarmay warda bimaa qasama allahu laka. waxaad raalli ku noqotaa wixii ilaahay uu ku siiyo subxaana watacaala. ilaahay dadka waxba uma simin, xoogga looma simin, quruxda looma simin, tallaabada uma sinna, ilmuhu uma sinna, maalku uma sinna, madaxtinimadu uma sinna, caafimaadku uma sinna, wax walba waa lagu kala duwan yahay. fadalnaa bacdahum calaa bacdin bila ilahi subxana wa tacaala. dadka waa la kala fadilay, qaarba sibaa laga dhigay, soo maa. ilaahay marka wixii uu ku siiyey raalli ku noqo. haddaad tahay ruuxa dadka maaragtay ugu tabar yar ee ugu faqiirsan ee ugu ilma yar ee maaragtay ugu liita, taa raalli ku noqo, ila ilahay baa sidan subxana wa tacala ku siiyey. haddaad tahay qofka ugu xoolo badan ama ugu madaxtinimo badanna raalli ku noqo, ilaahay baa ku siiyey subxaana wa tacaala. wixii ilaahay uu kuu qeybiyey oo qeyb kuugu soo hagaajiyey inaha ka argagixin, raalli ku noqo. maaragtay maxaad faa'iideysaa? takun aqna annaas, ruuxa dadka ugu taajirsan baad noqonaysaa. gurigaan mugi oo dahaba haddii lagu siiyo laakiin aadan raalli ku noqonin, indhaha un aad sii taagayso, wax kudeeqaya ma laha.
laakiin gala maarata wax yar oo qadadaadii ah waad iska maarata suuqaad iska agadaa waa iska xamaalataa waxaad soo heshaa qadadaadii iyo cashadaadii iyo qureecdaadii baad maalintaas soo heshaa raalli baadna ku tahay wax kaa taajirsan ma laha wax kaa taajirsan ma laha maxaa yeelay taajirnimadu waa nafta nabigu wuxuu leh calayhi salaatu wasalaam laysa alghinaa bikahrati carab taajirnimadu ma aha maal badan ma aha maal badan ma aha buu le nabigu calayhi salaatu wasalaam dad badanoo waxaa jira xoolo leh oo rafaadsan iyo ku aan waxba haysanin oo nolol raaxa ku nool taajirnimadu waa maxay waa qalbiga inama alghina ghina nafs waa naftaada kolba saa iska dhigta waa kolba saa iska bal u fiirsada dadka xoolaha le xataa hurdadii bay kari laayihin qaarkood kolkaad sheekadooda aada dhegeysato qaar badan baa kiniin ku seexda oo walbahaarintu ku dhacay oo wixii ilaahay uu siiyey raalli ku noqon waayeen oo laga yaabo kolka horeba inay xaaraan ka keeneen oo haddana ay xaaraan ku bixinayaan oo ku tumanayaan iyo hurdadii ka imaan laada oo isleeyahy ma berri baa maarad miyaad khasaari ma kii inta xagga jirtay ma inta xagga ufakan kii kale see noqon xoolihii kale xagga walbahaar baa diray laakiin adiga gurigaagan iyo qol maarata qolkaagan yar iyo bulcawskaagan aad iska jiifto waxaa weeyaan maaragtay oo ilaahayna nabadda uu kugu siiyey ood raalliga ku noqoto taajir baa ta wax kaa maqan ma laha maxaa yaele addunya markuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maarata man asbaxa aaminan ninkii waagu u barya isagoo aamin oo waxba ka cabsanaynin alxamdu lilah inagu waagu wuxuu inoo baryay inagoo aamin oo nin wax ka cabsanaya uusan jirin nin walbana ehelkiisii iyo reerkoodiibuu dhex joogaa iyo ilmihiisii ayib markaas kabacdin wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam caafimaadna la siiyey oo caafimaad qaba maalintaana qadadiisii haysta buu nabigu calayhi salaatu wasalaam fiir wax kale ma ah xoolo kuuma yaalaan story iyo bangiyo wax kuugu jiraan iyo xoolo meel kuu yaalla ma jiro maalintaa waxaad haysataa qadadaadii wuxuu leey nabigu calayhi salatu wasalaam ruuxa wuxuu la mid yahay qof adduunyadii oo dhan la siiyey buu la mid yahay maxaa yeelay halkaa far haddii ruuxa laga qabto ama hal il laga qabto oo la waxaad haysatee maala ma ku gadani raalli buu inuu ku gata moogta qofkan markaa wixii maaragtay lagu noolaan wixii ugu wanaagsan o dhan ba ag yaalla waa aamin waa caafimaad qabaa ilmihiisi iyo reerkiisi u dhex joogaa maalinta qadadiisi wuu haystaa ya berri ilahay ba u taallaa subxana wa tacaala berri ilaahay ba u taallaa laakiin maanta qadadiisi waa haystaa ninkaasi wuxuu lamid yahay bu nabigu calayhi salaatu wasalaam nin adduunyadii oo dhan faraha laga geliyey inaga marka maanta inagoo intaasoo lacag ina soo gelayso oo ilmihii laga yaabo dad badan inay ilmahoodii shaqaynayaan oo isaga laga yaabo inuu xoolihiisii haysto oo laga yaabo baloodkiisii iyo gurigiisii inuu degan yahay oo laga yaabo meeshuu ku dhashay inuu joogo yaa laga yaabo haddana inuu indhaha sii taagahayo oo isle waxbaa kaasii maqan waxa kaa maqan cibaadadan way iimaan nabi maxamed alay sala slam wuxuu baryi jiray isagoo calooshiisu ay maran tahay oo uu dhagax ku xidhay gaajo daraaddeed mana waayin isagaa doortay reerkiisi baa saa la ahaa gurigiis intuu yimaado oo yidhaha war wax ma haysaan oo la waxba ma haynu iska laaban jiray 9 guri oo nabigu leh alayhi salaatu wasalaam ayaa laga yaab 3 bilood aan dab laga shidin oo biyihii timir keli ay ku noolaayeen innagana cuntadii baa la daadinaya nin walbana indhuhu sii taagaya haddaan america yurub iyo aadi lahaa iyo meel fulaan iyo hebel iyo haddaan waxa xagga ka keeni lahaa nin walba leh ilaahay aan ka baqna subxana wa tacaala oo nin walba wuxuu ilaahay uu ku sii raalli ku noqo maxaa nabigu wuxuu leh alayhi salaatu wasalaam ha fiirinin waxa kaa maaratay laba ruux adduunku maarata waa 2 ruux adiga mooyeen kolka adiga lagaa reebo dad kale waa un 2 qof adaa ka sareeya oo مثلا caafimaad baa dhaantaa xoolaad dhaantaa caqli baad dhaantaa xoog baad dhaantaa kuna waxa weyn isaga laga yaabo inuu ka sareeyo xoolo ahaan uu ku dhaamo مثلا ama xoog ahaan buu ku dhaama ama ilmo ahaan buu ku dhaama ama reer ahaan buu ku dhaamaaba ka sareeya fiirin kan ka hooseeya fiir hadaa adiga qadadaada haysato mid baan qadadiisa haysanin hadaa adigu aamin maarta ku seexanayso adoo amaan oo waxba cabsi walwal qabin kuba maarta naxadin iyo cabsi ku jiifa hadaa adigu fayowdahay oo masaajidka imaanayso kuba isbitaalka sariirtiisa yaalo sanka wax laga gelgeliyo afka iyo sanka wax laga siinaya oo meelaha laga dulduleeliyay marka nin walba waxaad fiirisaa ninka ka hooseeyo fiiri mooyeene ka sarreeyo indhaha taag wad waalanaysaa kan guryaha garoofooyinka dhistay ee gaariyada watay waa weyn watay ee xoolaha badan isdaba geliyay madaxda meelaha ka qaylinay ha fiirinin kan sakaraasan adiga ka liita fiiri markaas aad nimcada ilaahay xusuusanaysaa subxaana wa tacaala haddaad soconayso kuba socon la haddaad taagni ku tukanayso masaajid kubaa fadhi ku tukanaya ninkii taagni ku tukan jiray caafimaad qabay hadda kursi ku tukanaya wuxuu garanayaa caafimaadkii raaxadu haystay markii hore ma garanay hadduu garanaya hadduu ilaahay kuu soo celiya kii wax urinayay
marka ur ka tagu garanaya kii indho qabay iftiinka iyo wax kala arkaya markay indhuhu ka tagaan mugdi galo yuu indhaha maaragtay nimcadoodii iyo barwaaqadoodii fahmahaya marka halkaa il ayaadan nimcadeeda iyo shukrigeeda aadan gudan karin halkaa il ee keliya ilaahay uu ku siiye subxana watacaala maanta shukrigeeda ma gudan kartid haddii lagu yidhaha kharashkeeda iska bixi ma bixin kartid sababta waxaa weyan hadday dhimato adduunka wax kuusoo noolayn kara miyaa jira kalla marba haddii ishaada way dhimatay la yidhaahdo oo xagga hoose ka dhima xuub hadduu fuulo waa laga qaadaa waa la daaweeyaa laakiin haddiiba la way dhimatay yaa kuu soo celin kara waa male soo ma ayib marka ilaahay wixii uu ku siiyey raalli ku nilow raalli ku noqda aan raalli ku noqono wixii ilaahay ina siiyey subxana watacaala saasaan taajiriin ku noqonaynaa camalka wanaagsanna aan ku daro markii iimaan lagaa helo camal wanaagsanna lagaa helo markaasaad nolol wanaagsan adduun iyo aakhira labadaba ku noolaanaysa ayib maaragtay ilaahi subxana watacaala waa kale qur-aanka ku leh min dakarin oo unthaa falanuxyiyanu xayaatan ayiba ruuxa maaragtay mu'minka ee camalka wanaagsan sameeyey waman yacmal min asalixaati min dakarin oo unthaa wahuwa mu'min marka ruuxa camalka wanaagsan sameeya ee maaragtay mu'minka ah waa shardi camalku waa inuu wanaagsan yahay qofkuna uu iimaan leeyahay waxaa lagu noolaynayaa nolol wanaagsan buu ku noolaanaya nolol wanaagsan ayuu ku noolaanaya nolosha wanaagsan adduunyada nolol wanaagsan buu ku noolyahay qabrigana nolol wanaagsan buu saddex nololood waa nolosha addunya hadda aan nool lahay qabriguna waa nolol kale aakhirana waa nolol kale saddexdaba ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu nolol wanaagsan ku noolaanayo nolosha wanaagsanna xoolo badan ma aha waa in ilaahay iimaan iyo camal wanaagsan ku siiyo waa in ilaahay uu ku siiyo inaad raalli ku noqoto wixii ilaahay uu kugu qaybiyey subxaana watacaala waa inaad raalli ku noqoto alxamdulilah aad tiraahdo oo aad maaragtay taa ku kaaftoonto ooda indhaha meel kale usii taagin nolosha wanaagsan buu ku noolaanaya dadkan gaalooyinka ee hadda hormaray kuwo badan baa guryo dhaadheer iska soo tuuro kuwa gaariyada isu dhiga wax yaroo dhib oo qabsaday maxaa yeele ilah qur-aanka wuxuu leh waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka ninkii diinta ilaahay diida oo qaadan waayo oo ku dhaqmi waayo nolol xun oo celi uu ku noolaanaya wax yar oo khasaaro oo soo gaari isu dilaya yuu ku isu dilahaya innaga hadda maala magaaladeenaan fiiri dadku wax weyn oo shaqooyin waaweyn oo hayaan oo qabtaan ma arkaysid dadka aan dariskanahay gaalooyinkan kulligood way inoo soo shaqo tageen inna waa iska fafadhinaa haddana guryaheenniba ka shaqeynayaan markaad u fiirsato sababta waxaa iimaanka wax weyna iimaanka maaragtay iyo raalli ahaanshaha iyo ruux qalbigiisu inuu maaragtay raalli ku noqdo wixii ilaahay uu siiyey yaa wax weyn ah haddii kale oo wax kasta lagu siiyo kuma deeqahayo marka warda bima qasama allahu laka takun agna annaas ruux dadka ugu taajirsan baad noqonaysaa waa dardaaranka labaad ee nabiga caleyh isalaatu wasalaam kii koowaad muxuu ahaa xaaraanta iska ilaali waxaad noqonaysaa ruuxa dadka ugu cibaado badan ta labaad waxa weyaan wixii ilaahay uu ku siiyey oo qeyb ahaan kuu siiyey wuxuu doonaba ha ahaadee raalli ku noqo waxaa weeyaan maarata waxaad noqonaysaa agna annaas ruuxa dadka ugu taajirsan baad noqonaysaa dardaaranka saddexaad ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo inagu aynaan aqooninba waxaa weeyaan uguba daran waxaa weeyaan maaragtay wa axsin ilaa jaarika takun mu'mina ruuxa jiiraanka kula ee dariska kula kaana maaragtay wanaag u samee wanaagaagu ha gaadho xumaantaadu ayna gaadhin wa axsin ilaa jaarik dariskaaga ixsaan u samee haddii aad wax dheer tahay wax tar haddaad cilmi dheer tahay u sheeg haddaad maaragtay ka xoog roonta waxaad la qaban karta la qabo haddaadan waxbaba u tari karin oodan waxbaba u haynin soo ma ah dhibkaaga ha ka nabad galo qayladaada dagaalkaaga maaragtay qashinkaaga waxaaga ha kaa nabad galo haddaad waxba u qaban karin haddaad wax u qaban kartana u qabo nabigu caleyhi salaatu wasalaam xadiid wuxuu le wallahi laa yu'min buu leh nabigu aleyh salatu wasalaam isagoo ilaahay ku dhaaranaya wuxuu le iimaan ma leh mu'min ma aha ruuxaasi mu'min ma aha markii la weydiiyey nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu yihi waa ruuxa aan dariskiisa jiiraankiisu ruuxa aan dhibkiisa ka nabadgelaynin kaa mu'min ma aha buu nabiga caleyhi salaatu wasalaam iimaankii marka maxaa isku xidhan daris wanaaggii baa isku xidhan jiiraankii iyo dariska ahaa oo wanaag loo sameeyo haddii aadan maaragtay dariskaaga wanaag u samaynayni iimaan ma lihid buu lehy nabiga caleyhi salatu wasalaam haddaadan iimaan lahayn oodan ilaahay iyo kitaabkiisa iyo rasuulkiisa rumaysanayn janno miyaad haweysanaysaa waa maya janno ma gelaysid dadka dariska dhiba maaragtay ahlu naar waa dadka dariska iyo jiraanka dhibahaya ahlu naar waa macnaha xoolahooda ha ku dhibin dhulkooda ha ku dhibin aflagaada ha ku dhibin ilmahooda ha ka dhibin qiiqa iyo wasakda iyo maaragtay dhibka ha ku dhibin ka ilaali
hadda dariskuna saddex qaybood waa qayb saddex xaq bay kugu leeyihiin, kuwa laba xaq bay kugu leeyihin, kuwana hal xaq bay kugu leeyihin. ruuxa dariska kulaa hadduu muslim yahay wada dhalashana ay jirto ood wada dhalateen darisna aad tihiin saddex xaq buu kugu leeyahay. xaqii islaamnimadu kugu leeyahay ilaa dadka muslimiinta xuquuq baa ka dhexaysa, kii wada dhalashadana wuu kugu leeyahay, kii jiiraannimadana waa kugu leeyahay. saddexdaa xaq buu kugu leeyahay ruuxa maaragtay dariska aad tihiin eed wada dhalateen ee muslimka ah. midka muslimka ah eed waxoogaa kala fog tihiin oo ayna qaraabo dhow ahayn kaana laba xaq buu kugu leeyahay, xaqii islaamnimada iyo xaqii jiiraannimada kugu leeyahay, labadaas isna kugu leeyahay. midka gaalka ah ee aad jiiraanka tihiin isagaa islaamnimana ma laha, dhalashana hadii laguma xidhiidhinayo, isaga maaragtay jiiraan keli un baa idinka dhexeeya, xaqii jiiraannimada kugu leeyahay. diinteenna bal fiiri, ruuxna xaqiisi lama dayacahayo, gaalkiiba xataa xaq kugu leh, gaalkii dariska kula aha xaq buu kugu leeyahay. hadduu baahan yahay, hadduu jiran yahay, dhibkoo laga ilaaliyo waa xaq uu kugu leeyahay gaalku. markaad dariska tihiin xaq uu kugu leeyahay w. marka diinta maaragtay saasay xuquuqda u samaysay, wacbudullaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurbaa walyataama walmasaakiin waljaari di lqurbaa waljaari ljunub. qur-aankaa sheegaya, sunnada nabiga lagu soo celceliyay wax badan calayhi salaatu wasalaam, ilaa uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam jibriil wuu ila dardaarmay war dariska war jiiraanka suu ii lahaa yaa waxaaban ka yaabay buu u maleeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu dhihi doono deris iyo jiraan hala isu dhexlo. walaal ma aha, labadii nin ay isku maaragtay baloodkooda ama gurigooda isku dhegan yahayba oo guryahooda isku dhegan yihiin mahayse dhaxlaan inuu yidhahdo aban ka yaabay buu nabiga calayhi salaatu wasalaam. ya innaga marka middaa miyaan haynaa? ya ma isbooqanaa, ma is ognahay, wax ma istarraa. inta waxaa samaysa waa inagu yarta culimo iyo caamaba hayna kala qaadina. culimadan waa un soomaalidana waa un wada soomaali, diintu waa inagu yarta, ku dhaqanka diintu waa inagu yarta. nabiguna wuxuu leh calayhi salaatu wasalaam muslimku ma aha ruuxa isagoo dharagsan seexda kan jiiraanka la-ana u gaajo ku seexanayo, kaa muslim ma aha bu nabiga calayhi salaatu wasalaam. innaga marka ku kala waxsiina iska badaaya, waxaa laga yaaba kii kula dhashay inuu gaajaysan yo baahan yahay, adna aad maaragtay xoolo badan haysato oo leeda anigu waan yeeshay ha yeesho, waan tubacday ha tubacdo. saas ma aha, xuquuq baa laisku leeyahay, xuquuqda hala ilaaliyo. xuquuqdaa markaa aad dariska ilaalinayso ixsaanka maaragtay oo axsin ilaa jaarika, markaasaad iimaan yeelanaysa, takun mu'minan, saasaad mu'min ku noqon. haddaad arrimaha laakiin halayso ood ku ciyaarto iimaankii isagana waa kaa dhamaanaya. waa kii nabigu inoo sheegay alay sla slam inuusan iimaan lahayn ahlu naar u noqonayo. wuxuu nabiga alay sala slam waxaa loo sheegay laba gabdhood oo saxaabadii ama dadkii mu'miniinta kamid a yaa laga sheekeeyey. mid waxaa laga sheekeeyey cibaado badan bay leedahay, maalin walba way soontaa, sadaqa badan bay leedahay, khayraad badan bay samaysaa. markaasaa wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam dadka dariska say ku tahay, haweenka kale jiraanka la iyo dadka maaragtay ku xiga say isku yihiin. waxaa li dadka uma roona naar weeyaan bu nabigu alayhi salaatu wasalaam. tu kalaa laga sheekeeyo waxaa li ma badno cibaadadeeda iyo soonkeeda iyo kuwa waajibaadka bay la imaataa, ila waajibaadka waa lagaa rabaa, laakiin sunooyinkii wixii baa ka maqan gabadha. laakiin maxay ka dadaashaa? dadka dariskeeday ka dadaalaysaa, taa janno weeyaan bu nabigu alayhi salaatu wasalaam. marka ruuxan adig saa ismoodaysa mit ani hadda bashiir ahaan saa ismoodaya miihi, waa say dadku ii yaqaanaan ama igu arkaan. nin walbana waa saa, adi ha ismoodin waxaad adiga tahay, ha ismoodin inaad tahay. waxaad adigu tahay iyo waxay dadku kuu yaqaanaan waa kala laba. muslimiintu siday kuu yaqaanaan ama qaraabadaada ama ahalkaaga lagu yaqaano iyo waxa aad tahay waa kala laba. inaguna dadka makhraatiga ilaahay u ah ee dhulka jooga waa inaga. maxaa nabigu waa kii lasoo mariyey calayhi salaatu wasalaam, maaragtay janaasaha lasoo mariyey, markaasay maaragtay wanaag iyo khayr ku sheegeen, markaasuu nabigu ui wajabad. tu kalea lasoo mariyo markaasay sheegeen ruux nin dhib badan inuu ahaa xun oo maaragtay fidno badan, markaasuu maratay adana wuxuu nabigu wajabad. waa la weydiiyo maxaad ka wadaa baa way waajibtay, maxaa ka wadaa? wuxuu kii hore khayr baad ku sheegteen, janna u waajibtay, kana shar iyo dhib inuu yahay ummadda dhibayaad ku sheegteen, naar baa u waajibtay buu nabiga calayhi salaatu wasalaam. lakin hadda alxamdulillah inagu waa noollahay, intaan hadda masaajid ku jira iyo wixiina maqlay waa noollahay soo maa. toobadda inoo furan marka, haddaan daris ku xadgudubnay iyo haddaan qaraabo ku xadgudubnay iyo haddaan ilaahay xuduuddiisi ka tallaabsanay, intaad nooshahay maxaa kuu furan? toobadaa kuu furan, inaad xuquuqdii dib ugu noqoto ood ka toobad keento ood ilaahay xaggiisa u noqotaa inoo furan. marka haddaan ilaahay agtiisa wax ka doonayno aan xuquuqda ilaalino. xaqii koobaad ilaahay baa lahaa subxana wa tacala oo xaaraantii la iska ilaaliya.
xaqii labaadna maaragtay subxaanahu watacaala oo laynoo sheega wixii ilaahay uu ku siiyey ayadana ad inaad raalli ku noqotaa noloshaadii iimaankaagii waay haddaad taa noqon weyda waa badaali waxaan ilahay kuu qorinna maba helaysid soo ma haddaad kor u boodo ama hoos u boodo waxaan ilaahay kuu qorin maba helaysid ma soo qaadaysid tan saddexaad waa xuquuqdii lagugu lahaa ee dadka dariska ay kugu lahaayeen waa inay siday tahay aad u ilaaliso dardaaranka afraad ee nabigu maxamed inoo sheega calayhi salaatu wasalaam waxaa weeyaan wa axiba linnaasi maa tuxibu linafsika takun muslimaa waxaad maaragtay dadka la jeclaataa waxa aad naftaada la jeceshahay nafteena maxaa la jecel lahay nin walba bardib isugu noqo wax wanaag oo maaragtay janno ugu weyn tahay iyo adduunyada wanaaggeeda o dhan nafteenna waan la rabnaa ma maalbaa ma caafimaadbaa ma ilmaa ma haween iyo xaasasbaa ma ammaanbaa ma barwaaqa adduun baa noocay doontaba ha noqoto naftaada waad la rabtaa soo maa inta aad naftaada la jecesha dadka la jecelo xaasid ha noqon xaasid haddaad noqoto waxaa weyaan camalkaagu waa fasaadaya nin ilaah dagaal kula jira ad noqonaysaa subxaana wa tacaala haddaad rabto keligaa inaad dad ka dhex muuqato keligaa cilmi ka lahaato keligaa madax ka noqoto keligaa xoolo ka lahaato keligaa ra'yigaaga la qaato keligaa ugu ilmo badnaato taa dadka kalena aad waxba la rabin qiimo ma lihid ilahay agtiisa qiimo kama lihid subxana wa tacaala markaad ilahay agtiisa qiimo ka yeelanayso waa markay naftaadu saafi tahay fiican tahay aad laab xaaran tahay aan qalbigaaga xaasidnimo xiqdi iyo xumaan ku jirin oo waxa wanaagga eed naftaada la rabto aad walaalkaaga kale muslimkaana aad la rabto walaalkaaga kale muslimkaana aad la rabto markaasaad muslim noqonaysaa laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi u nabigu xadiid kale leeyahay calayhi salaatu wasalaam iimaan lagama helay ruuxa ilaa uu la jeclaado walaalkii uu la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay ilaa uu la jeclaado waxaa weyaan maratay muumin ma aha buu le nabigu calayhi salaatu wasalaam xasadka nabigu waa ka digay calayhi salaatu wasalaam iyaakum walxasada buu le nabigu alay sala xasadkaan idinka digahayaa maxaa yeele xasadka wuxuu cunayaa salaadaadii iyo soonkaagii iyo wanaaggii aad samaysay sida qoryaha marka dabka la saaray iyo xaalo dabka lagu shida ay u gubtaan saas wanaagaaga u gubanaya haddaa xaasid noqoto xaasidnimaan iska ilaalino xaasidnimaan iska ilaalino qalbigeenu saafi ha noqdo maxaa nabigu alayh isalaatu wasalaam isagoo sidan oo kale u dhex fadhiya saxaabadiisii iyo wuxuu yihi riddaa waxaa kasoo geli doona nin ahlu janna ah ila nabiga waxbaa loo sheegi jiray inagu waxba ma ogin wax ahlu janna ah iyo wax ahlu naar ma kala garanayno lakin nabiga waxbaa loo sheegi jiray calayhi salaatu wasalaam marka nin baa ka soo galay maalinka dambena ninkii naftiisa un baa ka soo galay markii uu dhowr maalmood nabigu saa lahaa ayuu nin saxaabadii kamid oo dhalinyaro ayaa ninkiibuu raacay wuxuu waxaan rabaa caawa inaan kula baryo oo kula joogo wuxuu rabaa wiilkaas cabdullahi bin camr bin caas buu ahaa bal ninkani waxa uu jannada ku galay inuu ogaado waxa uu jannada ku galay inuu ogaado ayuu damcay wuu raacay wuu tegey soon iyo salaad fara badan iyo maarata salaatuleyl iyo wax badanba kumuuna aragba dadka caadiga unbu ninkii la mid yahay haddana nabigu wuxuu leeyahy waa ahlu janna calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu yidhi waan tegahayaa marka hore wuxuu ku yihi aniga aabbahay baa waxoogaa isku soo dhacnay marka inaan kula joogaan rabaa waan tegahayaa reerkanagii ciddanadii waan ku laabanayaa laakiin waxaan kuu soo raacay aniga aabbahay waxba nooma dhexeeyo nabigan hadalkaa ka maqlee maxaad samaysaa wax dheeraadana kuguma arag wuxuu yihi wiilkaygiio waa inta aad arkayso wax kale ma sameeyo laakiin waxaan kuu sheegi buu yihi ma seexdo mana soo tooso anoo qalbiga ruux mu'mina wax ugu haya allahu akbar taasaa nin walba aan laga heli karin taas yaa nin walba laga heli karin anoo qalbigayga ay xumaani ku jirto oo ruux mu'mina qalbiga xumaan uguma hayo kuma seexdo kumana soo toosa buu sababta waxaa weyaan salaadaadina lama aqbalay moogta soonkaagi ilaahay looma geynayo zakadaadi iyo sadaqadaad bixinaysa ilaahay loo geyn maayo haddaad ruux muslima aad qalbiga wax ugu hayso marka nafteenna nimanya wax aan la jecelahay walaalaheena kale muslimiintana aan la jeclaano mid cad iyo mid madow mid soomaali iyo mid aan soomaali ahayn aan walaalaheena muslimiinta waxa aan nafteena la jecelahay aan la jeclaano waxa aan nafteena la rabno wanaag aan la rabno saa un baan islaam aan ku noqonaynaa oo maaragtay cibaadadeena iimaankeenu inoogu hagaagaya midda u dambaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka digay waxaa weeyaan waa qosolka faraha badan aada ha u qoslina nabigu alay slat slam qosolka waa dabeecada bini aadamka uu qosli laakiin haddaad qosolka badiso nabigu wuxu uhi alayh salatu wasalaam qalbigaagaa dhimanaya qalbigaagaa madoobaanaya qalbi angeeg baa kugu dhacaya dadka mathalan dadka ka qosli iyo dadka qoqosli iyo maaragtay waa dad qalbi adag waa cibaadada maaragtay kuma ooyaan cibaadana ma jeclo maaragtay daacada ilaahayna kuma fiicno inay un dadkaa ka qosliyaan oo qoslaan bay rabaan meelaha taagnaadaan maxaa qalbiga angegaya
nabiguna wuxuu leeyahay xadiid calayhi salaatu wasalaam maaragtay abcadu rijaal dadka ilaahay dadka ugu ragga ilaahay agtiisa ugu fog haweenkana waa lamida alqalbu alqaasi ruux qalbigiisu angegay uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa dadka qalbigu uu angegay haddii qur-aanka o dhan lagu akriyo haddii wixii nabigu uu sheegay xadiidka loo sheego soomaalida waxay yihi haddii injiil iyo towreed iyo furqaan lagu akriyo waxba kama bedeleyso waxay ka bedeleyso male maxaa qalbigii baa dhintay maxaa nabigu wuxuu leh calayhi salaatu wasalaam jirka bini aadamka alaa ina fi ljasadi mudqa wax yar oo hilibaa ku jira bu nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshanuu ku jiraa waxaa yar ee hilibka ee meeshan ku jira waa wadnaha oo wax yar oo maaragtay kusii dhex jira oo wixii wax lagu garanaya marka meesha cadkaa yar ee hilibka ah wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduu hagaagana inta kale waa hagaagaysa xubnaha intooda kale way hagaagayaan hadduu fasaado hallaabana haddii xubnihii kale o dhan baa hallaabahayo oo meesha ka baxahaya xubnihii kale o dhan baa xumaanaya maaragta waxaa weya meesha soomaalida tirahdo hal baruura maaragtay 100 baruurood maaragtay urisa ama qurmisa waxaa tirahdaba waxaa weeyaan maaragtay qalbigaagu hadduu hallaabo xubnihii kale o dhan baa kaa hallaabaya meesha cabsida ay ku dhacaysa waa meeshaan markaasaad indhahaaga ilaalinaysaa calooshaada xaaraanta ka ilaalinaysaa afkaaga inaad xumaan gelisaad kaga hadashaad ka ilaalinaysaa inaad wax xaaraana ku cuntay ama ku cabsaad ka ilaalinaysaa zinadii inaad maaragtay u socotay amaad raadsaa iska ilaalinaysaa waa markuu qalbigaagu hagaagsan yahay maaragtay nabiguna waa kiilaha alayh isalaatu wasalaam xadiid lahaa waxaa weyaan in allaha laa yandur ilaahay ma fiirinahayo bidhaanteena iyo quruxdeena iyo jirhkeena iyo xoogga iyo waxa inaga muuqdo ilahay ma fiirinayo subxana watacaala laakiin ilahay wuxuu daawanayaa qalbigeenu fiirsanahaya meesha ilaahay dadka ka fiirsanaya waa qalbiga qalbiga hadduu kaa dhinto marka ka waran qalbiga hadduu kaa angega ka waran qalbiga hadduu kaa madoobaada ka waran qalbigana waxaa dila macaasida iyo dembiga dilana waxaa kamid a qosolka faraha badan nabigu aada uma qosli jira alayh isalatu wasalaam qosolkiisuna wuxuu ahaa maarata ilka cadayn muusood waxa le ah ama dhoola cadayn waxa tirahdaba hadduu qoslaba nabigu saas oo alayh isalaatu wasalaam nin weji xun oo weji macbuusa ma ahayn oo wejigiisa laga carara ma ahayn nin furfuran oo dadka soo dhoweeya oo maaragtay faraxsan bu nabiga alayhi salaatu wasalaam ila qur-aanka waa ka ilah kule walow kunta fadan galiida alqalbi lam faduu min xawlik hadaad nin adag oo qallafsan oo qalbi adag ay ta dadku way kaa kala cararayaan bale nabigu lagama kala carari jirin waa loo soo carari jiray mumin maaragtay muminiinta o dhan baa kusoo carari jiray ayib raxiim buu ahaa laakiin maca dalika nin qosol badan oo iska qosla ma ahayn laynoomaba abuurin ba arrintaa mogta inaan iska qoqosalo wax laynoo abuuray addunya dusheeda laynoo keenayba ma ah inaan iska mahadiysano iska qoqoslo iska ciyaaro iska kaftano addunya dusheena laynooga keeno dhib kalena waaban ka kasbanaynaayo qalbiga ayna madoobaana kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun waa quluubtuna ilahay agtiisa subxana wa tacala saddex weeye qalbi cad oo fidni iyo maaragtay balaayaba ka nabad galay qalbi maaragtay dhintay waa qulubta gaalada qalbi jiran qalbigaa jiran waa dadka dembiga ku dhex jira laga yaaba inagu inaan u badan nahayba qalbigaas wuu jiran yahay mar waxoogaa waanka masaajidiibu joogaa oo wanaaggii iyo khayraadka u imaanayaa marna xumaan buu faraha kula jira hada wuxuu hadduu jiradana waad ogsoontihiina inuu bogsadana waa laga yaabaa inuu dhintana waa suuragal soo maha wux mar hadduu jiro ruux hadduu jiro sariir fuulo inuu cudurkaa ka kacana waa laga yaabaa uu bogsado inuu dhinto saa ku tagana waa laga yaabaa qalbigaaga marka hadduu jirado oo dembigu uu ka bato inuu madoobaado marka dambe uu kaa dhinto ood gaaladoo kale noqotana waa suuragal inaad toobad keento ilaahay wasakhdii iyo wixii kaa fuulay kaa qaado oo ilaahay uu kuu nadiifiyana waa suuragal wixii qalbiga dilayana si guud waa dembi oo dhan waxaana ugu sii waaweyn dembiyada qalbiga dila qosolka ugu sii waaweyn maarata uu ka mid yahay qosolka marka qosolkan ayaynaa badinin shanta maaragtay dardaaranka ah iyo nabiga inoo sheegay alayh isalaatu wasalaam haddaan ku celiyo waxaan rabaa inaan idin weydiiyo saan ugu dhaqano kow wuxuu nabigu alayh isalaatu wasalaam xumaanta iska ilaali waxaad noqonaysaa ruuxa ugu cibaado badan ilaahay ugu caabudo og laba nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaad raalli ku noqotaa wixii ilaahay ku siiyey waxaad noqonaysaa dadka ruuxa ugu taajirsan saddex nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam dariskaaga ama jiiraan waxaa tirahda u ixsaanfal waxaad noqonaysaa ruux mu'minah afar wuxuu nabigu alayh salaatu wasalaam dadka waxaad la jeclaataa waxa aad naftaada la jeceshahay muslim baad noqonaysaa shan nabigu wuxuu uhi alayh salaatu wasalaam qosolka ha badinin maxaa yeele qosolka oo la badiyo muxuu dilayaa qalbigu dilahaya qalbiga ayuu dilhayaa ilahi waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala inuu ilahay nagu anfaco wixii wanaagsan aan sheegnayna aan maaragtay noqono dad ku dhaqma wixii maratay gef aan gallayna ilaahay haynaga dhaafo intaa kadib maarata haddii su-aalo jiraan waan arki doonaa laakiin yaa inoogu celin kara shantii waxaan rabnaa in lagu dhaqmo oo aynu qaadano hadda inaan baranay in kale aan